شاكير ودقدق وفدي بحي نين وزيره هوغاميناي ودمada carabta ah waxay ka degan airport London waxa soo dhaweysay wasiirad waa environmental and oil minister inuu ahaa jeclahay si fiican loo soo dhaweeyay markii loo soo dhaweeyay wafdigaas waxa ku jiray sheekarun ah waxa ku jiray nin oo sheekh ah laakiin scholar oo arimaha petrolka iyo engineer ahaa oo laakiin multazim ahaa macna multazim xana waxa loo jeedaa oo wax walba ku dhaqmay wax Ilaahay amray ninkaasi asaga wasiirka xoogaa intay daalad ku jiraan way afdhaafeen wasiirku wuxuu ku dhahay anigu wadiga ana hogaaminaa ee adeec isaguna wuxuu ku dhahay waa ku adeeca hadii aad amarto wax xalaala laakiin xaraam kuma adeecayo wuxuu dhahay wasiiradda waa haween hadii gacanta noo soo taagta salaan u dhahay isaguna wuxuu dhahay ana ma salaamayo wuu bariyay wuxuu dhahay dhageyso arintu waa mabda I'm very sorry I'm not going to shake her hand diyaaradii la soo degtay markii laga soo degtay haweentii iyada ugu soo horeysay wasiirka ugu horeeyay oo wadanka carabta si fiican u sheegay qofkii labaad wasiirku xigeenku ahaa qofkii saddexaad ninkii uu ahaa ninka waa expert waa senior advisor highly qualified waa laakiin diinta ku dhaqmay markii la soo gaaray wuxuu dhahay I'm very sorry I cannot shake your hand this is based on my faith and I'm very sorry it's and please do not take it as offensive waxay dhahday that's fine kuwii kala dhaqooda salaameen way soo dhaweysay baabuurtooda la saaray hotel ay wada aadeen subaxdii 9 o'clock waxaa dhacay meeting koowaad oo labada wasaaradood ninkii marka iyo xaflad soo dhaweyn oo iyada ay samaysay wasiiradda maxaa dhacday ma taqaanaa wasiirkii wuxuu ugu tagay ninkii qolkiisa advisorka wuxuu dhahay dhageyso maanta waa nabahdalaysay fiir wuxuu ku hadlay maanta waa nabahdalaysay marka codsigan ka codsana wuxuu dhahay shirka berit ha imaanin sababta sidii oo kala dhacayso dad kale soo wadataa haweena la socdo shaking hands kala sameynaya marka waxaan ka codsanayaa waa xanuunsan tahay qolkaaga iska joog wuxuu dhahay been ma sheegayo waa sheekadii nabi ibraahim soo ma jeedaan qofkii nabi ibraahim qasiis xusuusta marka wuxuu dhahay okay markaas wuxuu dhahay laakiin haddaad rabto inaad joogto inaan joogo waa joogaya wuxuu dhahay okay ma xanuunsanid okay been ha sheegin iska joog okay uu dhahay marka deal waa wuu iska joogay marka shirkii waa la soo wada fariistay laba line waa la soo hor fariistay wasiiradii oo dhanka British ka socotay shirka inta la bilaabeen waxay dhahday waxaan rabaa shirka inta la bilaabeen codsi su'aalan qabaa wasiirkan u qabaayna wuxuu dhahay yeah go ahead fiir hadalkay weydiin doonto waxay dhahday waxaan rabaa wafdigiina oo shalay soo degay hal qof ka maqan wuxuu dhahay yes maxaa ku dhacay wuu ku qasbaya marka muxuu dhahay mataqaanaa he's not feeling well so that's why he could not make it macnaa ma dareemayo macnaha ma caafimaad qabo caafimaadkiisaas uma fiicna markaas waxay dhahday waxaan codsan lahaa meeting in dib loo dhigo maanta saacado oo aad u yeerto inuu soo fariistaan rabaa anaa codsaday meeting dib loo dhigay saacado ninkii wuu yimid qolkuu ku soo garaacay wuxuu dhahay I'm very sorry isdiyaari saacad kadib waxaan ku noqonaynaa meeshii wasiiradda ku codsatay I don't know the reason laakiin inaan raacdo waayo uu dhahay soo diyaariyay waa la soo noqday meesha la wada fariistay shirkii waa la isugu yimid meesha marka naagtu waxay dhahday wasiiradda ahayd waxaan rabaa inaan hadlo intaan shirka la furin waxay dhahday maxaad gacanteeda u sheegareemaysa wuxuu dhahay waa kuu sheegay waxaan aaminsanahay aan raacay waxay dhahday waxaan rabaa qof walba oo idinka mid ah wasiirkaaga iyo dhammaantiin aan idin sheego haddii all muslims ay ahaan lahaayeen sida adiga u dhaqmaysoo kale annaga Britishka reer galbeedka cagihiin lugiina hoostoodaan imaan lahayn idinkaana maamuli lahaa and now we can start the meeting insaan rabaa waxaad aaminsan tahay ku dhaqan no matter
consequence wuxuu noqonaya hadduu ilaahay raali ka yahay intaas waa inta aan ku celcelinaynay dowladda Soomaaliya iyo naseexo ciidamadoo dhan ciidamadeena waxay noqonayaan the best army not in Africa oo kale xitaa adduunkay noqon karaan haddii ilaahay lagu xiro